halkan waa hotelka aan ka diganahay Watamu. Watamu meel aad u qurux badan waa Talyaanida yar ayaa la yiraahdaa. xeebayna saaran tahay sidoo kaleeto. Watamu macna ahaan markaan weydiiyo waxay ii sheegeen wax macmacaan inay kalimadaba macnaheedu u yahay. Watamu wax macmacaan waa magaalo macaan indhaha soo jiidanayso. isma ahaanna ismayaashii hore qadiimiga ah u dhow qurufooyin iyo waxaan ma aha. waa magaalo aad u qurux badan. hotelka aan seexanay wuxuu leeyahay baaskiiladan oo haddaad jiifka iyo sariirta ku cajistid maqaaxidana aad ku cajistid nashaadaad aad ku samayn kartid oo xeebta inaad ku tagtid baaskiilkan aad ku jimicsatid subaxii galabkii waqtigaa rabtid waa helaysaa. فرينو hotel service hotel lodge ku bixiyo ayuu ka mid yahay. xaafad walbo ka tirsan Watamu aad bay u qurux badan tahay. cadaanka waxyaabahay ku doorteen markaad timaadid waad ogaanaysaa inay ku saxan yihiin. magaalo aad u qurux badan waaye. ka waran janaalo magaalo weyn laga dhigay oo badna ay marto wabin dhan uu ka maro dhanna wabiga ka maro dhanna badaa ka marto. saas darteeda cusbada badda ka kacaysa saameyn buuran kuma laha. meesha idil waa wada cagaar kan intuu ka imaado wadan fulaan. hotelkan deganahay intaasoo cadaana nala degan oo kala wadanka kala yimid nasashay u imaadeen inay raaxaystaan ay u yimaadeen. annaga waa inaan baranaa sida lacagta maxaa la yiraahdaa lacagta inaan adoon u noqono maaha. adoon waxa uu noqonay raadinteedu kaliya hadaa ku jirtid ayadaa adoon u tahay waana raadine laakiin ayaga isticmaal wax yar ay haystaan ay isticmaalayaan mar walba. Watamu waa magaalo raaxa ah waa magaalo loo soo dalxiis tago waa magaalo nasasho leh. maxaad brada maantana waa maalin kale waxaan joognaa Ocean Beach Hotel Resort ayaan joognaa nala socda. Watamu waxyaabaha dalxiiska macnaha u yeelay waxa ka mid ah xeebta iyo doogan cagaaran ee qoraxdan yar qofka aanan culays u keenaynin laakiin jirkiisa caafimaad ahaan u fiican kaasaa keenayso dalxiisayaasha muhiimad weyn ay u yeelato magaaladan la yiraahdo Watamu. cid isdhehaysaa ma jirto magaalada cagaarkan leh oo quruxdan leh ba haddana sidoo kale bad way maraysaa. marka quruxda waa amni. quruxda waxa u sameeya wadamada kala sameeya waa amni. wadankeena hadduu amni lahaan lahaa quruxtan ka qurux badan ayay yeelan lahaayeen. ismahooda 300 sano 400 sano wax iska bedelaa ma jirto wax burburiya ma jiraan. saas darteed marka quruxda waa sii ziyaade magaaladana way weynaanay oo dadka magaalada nin walba magaaladiisu jeclaana halka anaga caasimada aan isugu tagno. waxyaabaha aan ka helay ama soo jiitay inta aan joogo Watamu waxa ka mid ah dhaqankii Carbeed Cumaaniyiinta halkan haysan jirtay ama ku nooleed ay sameeyeen ka mid ah waxyaabaha ka helay masaajid inuu ku yaalo angal wal 30 kilomitir aan socotida masaajid ku yaalo 30 kilomitir bad masaajid ku yaalo. sidoo kale
goobo loo dalxiis tago oo private tira badan resort tira badan ku yaalo meelo lagu qabaysto oo dadka haddii la yiraahdo 500 oo qof haddii timaado xataa qaban karo inay ku yaalaan labada dhinac adduunna sida loo shaqaystana way yaqaanaan dadka halkan ku nool aakhirna sida loo shaqaysto way ku fiican yihiin dambeyn waxa soo gabgabeynay safarkeennii dalxiiska ahaa ee quseeyay areadan Mombasa, Watamu, Malindi iyo magaalo tuulooyinka kale aan ku dhex jirnayba maalmahan safarkeenna ma noqon doono safarkii ugu dambeeyay Watamu aan ku nimaan waa safaradii ugu horeeyay hadduu Ilaahay yiraahdo safarro kale taan imaan doonana way jiraan la socod wanaagsan anay waa socnaa safaraan nahay wixii hadda ka dambeeyo Mombasa aan aadi doonaa la socod wanaagsan markaan Mombasa